السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعنا وناكسن كسر هذا برنامجك عيارها هذا لنا وأولك عيارها طبعا الله وفتنا سبسكرايب لايك صار حقاد وحكستوا حقاد قاعدك بدأ عن ليفربول وهدان بالبلاوضي ذلك أي كدوني صحيحة يارين قتل حلول قاعدك بدأ عن دورتم كيفن دي برونا وجبيه أما بربريه ريكور ولي هاليجي ليفربول ستيفن شيرات قاعدك بدأ عن برشلونة أوير إن عسوق أقوى قاعدك بدأ عن جلسي macalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Carlo Ancelotti oo record fiican ku leh kooxda uu baxay caawa ee Atletico Madrid. halkaad kala socotaan waa ogaalka ciyaaraha 82 subscribe like wax kasto waa idinka dhankiina. haddana waxaan gelinaa barnaamijkii diyaarsan. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa lagu soo waramay inay haddaanba qaaday talaabadii ugu horeysay ee ay ku doonaysay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Julie Bellingham si ay ugu xoojiso qadkeeda dhexe. tababaraha kubadda cagta Liverpool Klopp ayaa xiddiga u calaameedsaday bartilmaameedkiisii koowaad ee qadka dhexe waana sababta uunan xagaagii ula soo saxiixan xiddig qad dhexe ah maadaama uu sugayo xiddiga Dortmund u ciyaaro ee Bellingham. sida laga soo xigtay wargeysyada Sunday World, Liverpool ayaa bilowday wada hadallo rasmi ah ay ku doonaysa saxiix xiddiga khadka dhexe xilli ay kooxaha badan u xiiso u muujinayaan saxiix xiddiga khadka dhexe ee Julie Bellingham. Liverpool ayaa bilowday in ay haddaanba si dardar geliso dadaalo ay ku doonaysa saxiix xiddiga. maamulka Liverpool ayaa doonayay xidhan sidii uu saxiix xiddiga Bellingham ugu fududaado lahay marka la gaaro suuqa kala iibsiga xagaaga dhamaadka xilli ciyaareedka. sida ayaa sheegay in xiddiga uu doonayo inuu ku biiro isla markaana diyaar u yahay inuu dhageysto ama uu ku doorto Liverpool dhammaan kooxaha kale ee doonaya xiddiga. asaga ayaa doonaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Liverpool. marka Liverpool oo ciyaareenkaas hesho aad iyo aad ay muhiim ugu tahay qadkeeda dhexe maadaama uu Thiago dhaawiciisa badan yahay. dhanka kale xiddiga kooxda kubadda cagta Manchester City Kevin De Bruyne ayaa barbariyay record oo Steven Gerrard ka dhigay Premier League kadib guushii ay City ka gaartay Wolves. kooxda kubadda cagta Pep Guardiola ayaa guul 3 gool iyo ewer ka gaartay Wolves horyaalka Premier League kulankii ka tirsanaa toddobaadkii 8aad ee xil ciyaareedkan. xiddiga Kevin De Bruyne ayaa caawiye ka noqday laba kamid ah 3 gool ay Man City dhalisay kulankii Wolves. Kevin De Bruyne ayaa caawiyay goolkiisii 91 iyo 92 ee Premier League isagoo ku dhigay taariikh tartanka ah. kadib caawinta Kevin De Bruyne ayaa barbariyay caawintii uu sameeyay halyeeyay Liverpool Steven Gerrard kaas oo 92 caam sameeyay intii uu ka ciyaarayay horyaalka Premier League. Steven Gerrard ayaa la soo qabtay. hadda Kevin De Bruyne wuxuu u baahan yahay oo kaliya hal caawisiga uu noqdo ninka ka sare maray halyeeyga Liverpool ee Kevin Steven Gerrard. dhanka kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dhanka weerar suuq ah Chelsea. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lagu soo waramay inay isha ku hayso saxiix xiddiga khadka dhexe ee kooxda Chelsea ee Jorginho xilli ay suuqa ugu jirto bedelka Sergio Busquets. Jorginho ayaa ku jira sanadkiisii ugu dambeeyay ee Chelsea waxaana lagu heli karaa qaab xor ah ama lacag jaban suuqa January haddii aanu kooxda heshiis cusub u saxiixin. sida laga soo xigtay The Sun, Barcelona ayaa doonaysa inay u dhaqaaqdo saxiixa Jorginho marka la gaaro suuqa January. sidoo kale waxaa la sheegay inay Barcelona heshiis hordhac ah la gaari karto xiddiga 30 jirka ah si ay qaab xor ah ugu hesho saxiixiisa xagaaga dambe. Jorginho ayaa dagaal ugu jira sidii uu boos joogto ah u heli lahaa kooxda Chelsea kadib markii uu Graham Potter noqday tababaraha cusub ee kooxda tan ilaa markii uu ku soo biiray Chelsea sanadkii 2008. Jorginho ayaa kooxda u ciyaaray 196 kulan wuxuuna dhaliyay 27 gool. isla barnaamijyada ku jirnaa ee kala socoteen ogaalka ciyaaraha 82 subscribe saar like saar. tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa isha ku hayay inuu kooxdiisa Real Madrid ku hogaamiyo guushii 9aad oo xiriir ah xilli ciyaareedka marka ay Los Blancos u safrayso caawa Atletico Madrid. Los Blancos ayaa guul ku bilaabatay tartanka UEFA Super Cup bilowgii bishii hore xilli ay badisay labadii kulan ee ugu horeeyay Champions League iyo 5tii kulan ee ugu horyaalka. Ancelotti ayaa markii 20aad ka hortagi doono kooxda Atletico Madrid xirfadiisa tababarnimo marka ay Real Madrid u noqon doonto kooxda ay jarka yihiin. tababaraha reer Talyaani ayaa record isku dheeli tiran ku leh kooxda ay jarka yihiin Real Madrid ee tan ilaa markii uu ka hor tagay markii ugu horeysay
Ancelotti ayaa Real Madrid Ancelotti ayaa Atletico ka badiyay 7 kulan halka uu Barbaro la galay 5 kulan halka ay Atletico ka badisay 7 kulan oo kale. tababaraha Ancelotti ayaa 17 jeer ka hortagay Atletico Madrid isagoo oo tababar u ah Real Madrid halka uu 2 kalena kaga hor imaanay kooxda Bavaria ama Bayern Munich. halkaas aad kala socoteen waa idaacad halkaad kala socoteen waa YouTube channelka ama channelkeena ogaalka ciyaaraha 12 please fadlan subscribe noo saar si dhiirigelin noo noqoto asxaabta noo shirgareed halkan waxa kala soconaysa dhammaan wixii barnaamijka ciyaaraha waana maasantiin kulanka xigo insha Allah.